xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya halkaas oo uu kaga qayb galayo shirka 22aad ee Midowga Afrika isagoona sheegay in ay Soomaaliya dalbanayso taageero ku aadan ciribtirka waxa uu yeeray cadawga ummadda Soomaaliyeed madaxda dalalka Afrika ayaa diiradda saari doona qorshaha 2063 oo dhigaya meesha qaaradda Afrika la doonayo in ay gaarto marka la gaaro sanadkaas qorshayaashaasi waxaa ku xusan in Afrika ay qaadi doonto tallaabooyin ay ka mid yihiin dawlad wanaagga dhaqaalaha iyo horumarka sanadkan waxaan ku bilownay guulo laga gaaray cadawga dalka anagoo aad isugu diyaarinay kaalmana ka helayna saaxiibadeena waxaana ku qasabnay in ay waayaan meel ay ku nastaan kuna dhuntaan culays aysan u dulqaadan karin ayaan saarnay kuwaas oo ay ka mid yihiin weeraro isdaba joog ah oo meel walba ah ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoona hadalkiisa raaciyay waan wadaynaa qorshayaashaasi aan doonayno inaan ku ciribtirno al-shabaab hawshan waa inaan soo afjarnaa sanadkan 2014 ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweynaha Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud hadalkani madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu leeyahay dalka Mareykanku ay duqeyn ku dileen habeen saddexaad sarkaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab kaas oo ay dawladdu sheegtay inuu ahaa madaxii isku xirka al-shabaab iyo xubnaha ajaanibta ah si kastaba xarakada al-shabaab ayaan iyadu wali hadal ka soo saarin dilka sarkaalkan iyadoona duqeyntaas isla markiiba ay sheegatay dawladda dalka Mareykanka oo dhowr jeer oo hore duqeyn noocan oo kala ah ku dishay saraakiil ka tirsanaa xarakada al-shabaab dhanka kale al-shabaab ayaa sheegtay inay beegsan doonto mas'uuliyiinta kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo ay ku jiraan wasiirada u dhawaan soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed Bilagele Somsat magaalada Muqdisho